السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وان إذن سلام يا صحابتي كحرا شكر أوفيشيال وحان إذن لي حيشور دوادا صحابي وان رجينا يا إناد عافيمات قبطان سيديدو كلا انت عافيمات قبطان إلهي عافيمات كهوسياديو انت حنوصاني سنة الله عافيو أيان لي هاي شور دوادا صحابتي إذا وحان إذن لي هاي عسر وناكسن maalin caafimaad qabta maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago qiso ay ii soo dirtay gabar walaashaya oo Soomaaliyeed waxaan rabaa qisadaas oo aniga waan la ooyay in badan idinkana inay idinka oysiiso laakiin waxaan idin ka codsanayaa cod buuxo in aad u duceysaan gabadhaas in amuuraheeda Ilaahay u fududeeyo insha Allah ducadana waa dhinaca commentiga waxay tiri gabadha sidan ayay u dhacaysaa waxaan rabaa inaan fariinta gabadha idin aqriyo waxay tiri assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waan idin salaamayaa shukr official iyo asxaabta ku xiran waan filayaa inaad ka qaadeen waxaan leeyahay walaasha qurux anigu waan ka qaaday asxaabteydana anaa kaaga qaaday soo dhawow waxaan rabaa inaan sii guda galo qoraalkii gabadha waxay tiri waxaan joogaa tiri Boosaaso wala cid garanayso baa garanayso waxay tiri maalin maalmaha kamida ayaan waxaan isku aragnay magaalada Boosaaso dhaxdeeda waxaan isku aragnay wiil Soomaaliyeed wiilkii waxay tiri waan isbaranay barasho isbareedin nambar ayaan kala qoranay wuxuu ii sheegay inuu ku yahay marti Boosaaso wuxuu ka yimid Burtinle asagana kulli cid garanayso dhinacaasi Puntland weeyaan waxay tiri wiilkii barasho iyo bareedin iyo nambar kala qorasho gadaasheed waan soo kala tagnay wiig ayuu sii joogayay wiigaas ayaan kulanay dhowr mar masha Allah ma jacaylan baqaada waxay tiri sanadka wuxuu ahaa 2017 ka bishii koobaad ayuu ahaayay tiri sax qoraalka waxay tiri bisha koobaad ayuu ahaa waxay tiri jacaylkeena ayaa halka ka sii ambaqaadnay wiilkii uu laabayay wuxuu ku laabayay halkii uu ka yimid iyo Burtinle tiri jacayl dabadii waxay tiri sanadkan 2020ka waxay tiri ayaan ku heshiinay inaan isguursano bishii labaad sidaan u wada socon almuhim sujuma qaanimi dhawa 3 sano u maleynaya ma sha Allah jacayl waxaan ku yiri tiirarkiyo udbihiba loo adkeeyay ma sha Allah laakiin murugta ka dambaysa waxaan ku yiri silaca waxay tiri wiilkii waxaan go'aan ku gaarnay haasaawo iyo wada hadal iyo telefoon iyo xataa mar aniga aan safar ugu tagay tiri halkiisii aan soo joogay 2 maalin tiri adu waxay tiri waxaan noqonay dad isku kalsoon أنا وحكلا قرسنين ما شاء الله جعل كانوا نوحي تري أم بقاد وناكسن وحن كوهشينا إنا نسكور سنو جور دبذية تري مركان جور كوهشيني وحو ويري تري هبين هذا كمدا قالت مرة وحن ربا إن الرير كي يقول شيء إلا إيكا صوتونه سنة كان بيش اللوات ويانيا سيد هذا كبدا waxay tiri waxaan rabaa in la ii ka soo doono reerkii ayaan rabaa inaan u sheego ku dhaho gabadha hala ii doono adna waxaan rabaa inaan reerkaaga ii balamisid sidaana aan ku imaado halka kaagana soo kaxaysto ma sha Allah waxay tiri farxad habeenoo dhan ay tiri farxad inaan farxad la ooyo bis ay dhineed habeenka xataa ma seexanay tiri murug la seexan waaya la arki jiray farxad la seexan waaya mararka qaar la arkaa waxay tiri farxad waxaan lahaayay tiri goormo waaga bariyo ku dhihi doona odayaasha ballami ani waan soo ballamiyay waxaan ku heshiinay tiri inuu maalintaas asagana odayaasha soo ballamiyay anagu weygaan u soo sheego soo markaas sidaasna reerkii iskula kulmaan annagana aan u noqono family buuxo iyo lamaanihi jacaylka ma sha Allah iyo waxaan 3 sano soo wadnay mira dalkooda inaan koronaan doonaynay tiri laakiin waxay tiri habeenkii waxay tiri maalintii ayaan wacay markaan wacay ayuu igu yiri odayaasha wili ma la kulmin galabta maqribki ayaan balansanahay caawa ayaan ku soo wacayaa gacaliso ismarxabeynay tiri waan sugay habeenkii ayuu isoo wacay laakiin wuxuu ii sheegay asoo murugsan wax aan ka fajacay oo ka farajacay oo aan ka naxay ilaa hadda murugteeda aan waxay tiri meel u jiifo wala oo rabaa calooshii xanuunjisa gabadha mistreen horaan u soo ooyay anna ila ooy doontaan asxaabaysan filaayo wuxuu ii sheegay tiri asoo murugsan oo waxay tiri murugo iyo waxay tiri calaacal iyo cataw ka muuqdo waxaan ku dhahay gacaliya maxaa kugu dhacay in mudaahu aamusnaa kadibna wuxuu ii sheegay tiri reerkiisii markuu u tagay galabtii inay ku yiraahdeen gabadha aad doonayso qolama yani qabiilkeeda yuu yahay asna wuxuu ku yiri gabadha aan la sheekaysto waa ma dibaan
reerkii waxay ku yidhaaheen tiri wiilkii siduu ii sheegay ma dhibaan isma guursanin waad waalantahay xarigaad u baahan tahay waxaasoo kale mar damba ha ay noola imaanin wiilkii asoo ooynaya ayuu igu yidhi tiri sidaas ayaa dhacday xaaladii habeenkii way xumaatay wuxuu igu yidhi tiri beri ayaan ismaqlaynaa insha allah aniga waxay tiri ooyin habeenoo dhan laba indhood isma saarin haddana habeenna farxad habeenna murug soo jeeday tiri beerka ayaan dhulka dhigtay subaxdii ayuu isoo wacayay tiri anoo yaaban oo farajacsan oo waxaan sameeya garan la markaa horteedna 3 mar ayaan wacay taleefankiisa ugu xirnaa anoo naxsan ayuu isoo wacay tiri walaagiga oo isiis gabadhan subaxdii isoo wacay tiri subaxdii markuu isoo wacay tiri wuxuu ii sheegay inaan isla baxsano ma fahantay wuxuu yiri tiri tala kale anigu ma hayo xaloo dhan ma saxan go'aanka qaatana waxa waaye ninka ragga moogtay dumarku ka go'aan adag yahay go'aanka gaar waxa waaye ka calisay inaan isla baxsano waan ku imaanaya waana isla baxsaneena laakiin aniga tiri waan ka diiday waxaan ku iri tiri guurka waxa wanaagsan inay familka raali iska yihiin anagoo labadeena la isku keen duceynayaan inaan israacno taana waa ku gacan seeray tiri hadda waxaan taaganahay tiri in muddaa isjijiid iyo dagaal maxaa yeelay wiilku wuxuu taagan yahay waa inaan isla baxsano anigana waxaan taaganahay tiri reerkii wax ka dhaadhici dib wax uga sii dhaadhici inaan anaga kala noolaan karin u sheeg anigana de ibar reerkii waan la hadlayaa laakiin wuu diiday tiri gacaliyahayga wuxuu rabaa inaan isla baxsano anna marka waxay tiri talaa fara ka baxsan ii soo duceeya inuu ii sheeg ilaahay sidii roon ina waafajiyo aniga gacaliyahayga kol calaa taxaal wixii talay tusaalaha dhinaca commentiga ugu soo reebo gabadhaan idin leeyahay anigana waxaan leeyahay walaashay qaali dhaxda xiro way wanaagsan tahay go'aanka qaadatay maxaa yeelay guurku wuxuu ku wanaagsan yahay inay labada qof duceysan yihiin ayagoo la isku duceynayaan ay israacaan laakiin de wixii laga fursan waayana mararka qaar waa la sameeyaa kolley waxaan ku leeyahay wixii talii tusaale aniga aan qabo arrintaas ka dhihi lahay public ka dhihi maayi dhinaca messengerka fariintan iigu soo reebto gabadhan dhinaca fariinta aad iigu soo reebtaan fariinteeda kale kuugu soo gudbin doona insha Allah anigu shukri ahaan idinkana waxaan idin leeyahay gabadhan de maxaa la dhahaa dhanka commentiga fariinta ugu soo reeba waxaan kaloo idin sheegayaa cid rabto inay ii sheeg fariimo ila soo wadaagto waxay igula soo wadaagi kartaa facebookayga dhanka messengerka facebookayga waxa ku qoran Sharaf Cabdalle waad igala soo wadaagi kartaa snapchat-kayga oo kale haddana fariinta iigu soo reebi kartaa snapkaygana waxaa waaye Agwaanad Shukri Cabdalle marka Instagram oo kale iigu soo reebi kartaa ayadana waxaan idin leeyahay waqtigu ha idin macaanaado nolosha ha idin wacnaato rajada ha idin fiicnaato Soomaalidana waxaan kula talinayaa cod dheer mar dambe iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba qabiil iyo guur wax iska galay ma jiraan siyaasad iyo guur wax iska galay ma jiraan Soomaalida waa ina abti ina adeer ina aabiya ina habaryar ina eedo sodo iyo walaal ma fahantiin meelna kala ma tagno dhanka siyaasadda hadii la aadana waa siyaasad unba meesha taal laakiin anagu waxaanu nahay dad walaala eela ma kala maarano soo marka waxaan idin leeyahay Soomaaliya qabiilka ka waantooba qabiil waa hore ahaa waxaana waa laga ilbaxay lamaanahana isku daaya iskuna fasaxa inuu Ilaahay khayr badan idin siiyo waalidiinta waa laga yaabaa wallahi ina adi waxa filanaysid wax kale noqon karaan soo moogid rajada maanta qabtid waxa laga yaabaa inay biri nooc kale kugu noqoto rajo xun hadaa qabtidna waxa laga yaabaa inay rajo farxad badan kugu noqoto nolosha ha hiifin waqtiga ha culaadinin farxad mar walba adiga waxaad isku daydaa inaad faraxsanaatid xaalad walba ku sugan tahay waxaad isku daydaa inaad ismoodisid murugta waxa ka dambeeyo farxad fara badan maxaa yeelay hore waxa loo yiri adduunyada waa dhib iyo dheef marka dheef rabtidna waa inaad dhib fara badan martid hore waxa loo yiri nina wuxuu yiri waa inaan dheef wacdaa maanta intuu meel istaago wuxuu yiri dheefay markaasay dhibkiya wuxuu yiri hee markaas yiri dhibo anigu kuma yeerana dheefa u yeeraya maxaa qaldan markaasuu dhibkii wuxuu ku yiri anigu markaa isoo martid ayaad dheefta u gudbaysaa marka adoo dhibtoon ma dheefsanaysid mar walba waxaad isku daydaa inaad dhibka martid dheeftana dabadeed aad heshid guusha iyo rajada iyo reynreynta iyo farxadana way ku dambeynaysaa waxaan leeyahay intii murugsan murugta Allah ka qaado intii faraxsan sideenoo kalena farxadda Allah u siyaadiyo annagaba ma naqaan wax noo dambeey doonee farxad wanaagsan aan idin rajeynayaa insha Allah lamaanayaasha isdoondoonayana waxaan leeyahay intii isdoondoonayso intii isku faraxsan farxadda Allah u siyaadiyo intii murugsanna murugta Allah ka qaado kulay waan duceysanaynaa waan wada duceysanaynaa waxaan maqla jira kaligaa lama duceystee annagana de wax wanaagsan Ilaahay ha nala kulmiyo inoo soo duceeya
qalbiyadana aan isku furno intii wax iska tabanaysana ha is cafiyeen ayaan leeyahay. Soomaalidana mar walba waxaan leeyahay ilaahay barkooda burcad ha isku mariyo. waan idin salaamayaa asxaabteyda, waan idin jecelahay waqti kastii saacad walbaba. waxaan idin rajeynayaa kulan caafimaad qabo wacan. fariimahana horan idinkugu sheegay halkaad igula soo wadaagi kartaan. waxaan bilaabay qisaday ka daran tahay insha Allah inaan idinka dhageysto ama aan idinla wadaago qisada xanuun badan igu reebatana aan gabay ama hees ama wax ka sameeyo. marka waxaan idin leeyahay soo dhawaada waqti kasta kulan caafimaad qabo haboon. salaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.